waxaan leeyahay wixii raga ay haday cid kasta tahay ee jiirka muslimka leh raga waxay la qabtaan xiraabona ninkaasi in badan buu berbera ku galgashay ninka in cidina si gaar ah waxa looga qabto si gaar ah xildhibaanada golaha wakiilada ee laga soo doortay gobolka saaxil oo maalintii saddexaad kormeer indhaindhayna ku jooga magaalada berbere xarunta gobolka saaxil ayaa maanta waxa ay booqdeen qoysaska danyarta ee ku nool xaafadda xiraabo oo maalmihii dambeeyay cabasho ka muujinayay maamulka dowladda hoose degmada berbera oo ay sheegeen inay ka barakicinayso guryihii ay deganayeen in ka badan 30 sano ugu horeyntii waxa iyagu halkaasi ka hadlay kana waramay cabashadooda qoysaskii danyarta ah iyagu ku nool xaafadaasi xiraabo anigoo ku jira xaafadda xiraabo oo 4 nin oo buka haysta oo 4 nin hooyo iyo aabo midna aan haysin midimicilaash buu ku jira caalamku uu ogay wixii berbera joogo ogay xubinta taranka ninka iska jiray weeyaan micilaash buu igu jira Hargeysa cid alaale cid wixii tartaa ma jirto in cidin waa markii afraad uu bartaa igu yimaado mar meherad yaran bartaa ku hayo ayuu iga dumiyay maxaan ku leeyahay Xuseen Timo weyne yar nin maxaan ku leeyahay xaafadaaba ugu tagay maxaan ku leeyahay dawladda hoose waxa lagu yiri maxaad ka damacday raggan rajada ah ee agoonta ee hooyada lahayn ee aabbaha lahayn ee labada hablood ee ru shaqeeyo maxaad ka damacbaad ugu yiri faruhu naga qaado iska kaayay tagay waqti xaadirkii hadana gurigan xiraabo laba jeer waa markii labaad ay imka u galo waa in badan baan qeylinayn waxa maanta sharaf noo oo loo fiican oo ilaahay aan ugu mahadinaynaa sida aan ugu soo gurmateen aan ugu timaadeen maanta waxa tiin xoogagaal wax walba ogtiin oo ka jira goobtan afad kamida oo leeyahay xiraabooda waxaanu ka cabanaynaa maamulka dawladda hoose taasoo ay yiraahdeen waanu idin ka raraynaa halkan waxaanu nahay dad mubaadiliina kuwa loo soo rarayay la keenayaa waa dad shiciba oo mubaadiliin oo anagu kala salaadii hore markuu waagu bariyay ayaa Oromo iyo ciidan araadiya afarta hareero la naga dhigay xabad baa waxaygi loo ka imika wali ciyaalka banaankaasi wadin cadownimo aan caalamka lagu arag iyo axmaqnimo ayuu ninka magaalada haystaan ugu la kacay xildhibaanayaal waa arkaysaan goobtan waa goobta xaafadda kamida in xaafadaha magaalada berbera ee xiraabo labadii bilood u dambeysay imika muran xooga ayaa ka soconayo maamulka dawladda hoose ayaa dadka barakicin iyadoo dadka meel loo barakicin iyo meel gani midna aan jirin waxa weeye waxa la igu kala fadilaya aniga iyo ninkan wali maan garan waxa weeye gurigan uu iga dambeeyay shalay buu ahaa una sharciyeysan yahay waana dhulka inta leeg qobcada yar inta leeg naqan baan anigu ka deganahay waxa weeyaan lama sharciyeyn kari waayeen leeyman siin kari waayeen inta aanu tagayna waxa weey waa in badan saad halkan wuxuu degay aabahay 7 sano ka hor Soomaaliga soo ciyaalo iskuulka magaalada laga soo qabtay aabahay warqad ayuu dawladda hoose ka soo goostay halkaas la keeno wax buu ku bartay anaga degan oo ku dhalanay ubadka iyaga ku sii dhalay 15 ciyaal baanu nahay cidna eegtay ma jirin dadka qaar waa loo sharciyay anaga noloma sharciyeen gurigaas jira muuqda ee halka ah guriga sanduuqada ee ku dhagsan lama sharciyeen ka dartana waa la sharciyay kan waa mid uriyaan baa kan ku jira 6 maatiya buu ku haystaa waa loo diideen loo sharciyay kanna waa loo sharciyay afar inana walwaalan baa barta xidhan idima eegto dawlad maaha ninka la xirsi lala guriga ku jira inaan waalan buu ku haystaa lama eego tacadi ayaa lagu hayaa dawladda waxa aan leeyahay dib u fiirso dadka eega maati baa joogtay xildhibaan Cabdirashiid Cagaweyne iyo sidoo kale xildhibaan Xasan Ogaal ayaa iyaguna halkaasi hadalka iska daba maray kana waramay duruufaha ku xeeran dadkan danyarta ay ku nool xaafadda xiraabo waxaana hadaladoodii kamid ahaa runtii aad baan ugu faraxsanahay anagoo 10 xildhibaan ee laga soo doortay gobolka Saaxil inaanu saaka booqashada ku nimaadno saa ogtiin dhawaalo cabashada waa maqlaynay xiraabo ka soo baxaysa waxaanu go'aansanay bal in meesha cabashadu ka soo baxayso aanu tagno oo soo eegno runtii waanu booqanay waanu soo aragnay dadka walwaalana halka jooga iyo xanuunsanaya iyo dhibaatada taalada waa soo aragnay saaka runtii halka waxaan ku soo aragnay waxyaabo badan oo nolosha marka loo eego aad iyo aad looga argagaxo dadka halkan degani waa dad nolol ka hadlaaya waa dad sheegay 12 sano ilaa 7 sano in dhaxaysay inay degan yihiin dadkan waxay sheegeen in qaarna loo sharci loo siiyay qaarna aan loo siin runtii dadkan markaad eegto cid la soo raraayo iyo sheegeen iyo cid halkan degan marka la doonayo in meherada la furo waxa ka horeeya nolosha ka horeysa dadka halkan degan nolol bay u baahan yihiin
laakiin dadka la leeyahay waa lagu soo rarayaa ama sooyaal ha laga soo raamo meel kale laga soo raree waa dad leeyahay siday sheegeen ganacsi baa loo samaynayaa ganacsigana waxaa ka horeysa nolosha ka horeysa runtii dadkani qaranka iyo guud ahaanba bulshada gaar ahaan xubnaha mudanayaasha ee golaha deegaanka waxay ku leeyihiin in si toos ay u eegaan inay isbarbar dhigaan ninka loo sharciyey sharciga haysta iyo kaan sharciga aan haysan inay labaduba xuquuq siman ay ku leeyihiin dadka ay u dhaarteen inay yihiin annaguna dadkaan u dhaarnay inay yihiin meeshani waxa weeyaan waa meel dan guud oo waddanku leeyahay hase yeeshee sharcigu waa inuu labadaba qabtaa ama uu wada raraa ama uu wada siiyaa محمد علي روح تلفزيون عالمي قبني TV مقالة بربرة